Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Haddaba maxaa layga baahan yahay si aan registration ugu sameeyo brokerkan cusub fxcc.com. brokerkaasi oo ku fiican Africa, oo weliba kusii fiican geeska Africa ama Soomaaliya badanaa la isticmaalo, laakiin hal mabda oo ku liita ayaa jirto. halka mabda waxay tahay lacagta kala bixiysaan $100 baa ugu yar, lacagta dhiganaysaana $100 baa ugu yar. Marka waxaan barbar dhig ku sameyn doonaa brokerka kale oo asigana la yiraahdo xm.com. labadaas broker baa isbarbar dhig ku sameynaynaa, bal ila socda ama sida verify uga dhigi karno iyadoo aan tusin doono akoonkeena, ama iyadoo aan ku diri doono fariimo kale, iyadoo aan u diri doono aan iraahdo cafwan swift code haddii soo weydiiyaan sida cashirkii horeba. marka sidee registration ugu sameeyaa baan soo bilaabayaa. halkan waxaa ii furan suuqii structure-ka oo cashiro fara badan ay kasoo socdaan. kanna waa kan haddii aad bilow tahay brokerkani registration buu kaa rabaa. haddii aad hore u samaysatay login emailkaaga ayaa kusoo gelaysaa. waa soo login gareeyay, bal guduhu i keenayaa, bal eeg waa kan brokerkii my profile, bal aan fiiriyo iyo documentigaga saa upload u dhigi karto. okay, halkan verify maaha, verification buu naga rabaa ila soco saan u verify gareyno. okay, halkan waxaana loo saxay kaliya emailkeena iyo passwordkeena waa sax, taleefankeena kulli wuxuu saaray calaamad su-aal. marka si aan u saxno ayaan gelaynaa oo see verify looga dhigaa. account numberkeenana waa kaa. mar walba registration number buu ku siinayaa, numberkaas hadhowdii ilaashanaysaan iyo passwordkeeni emailkeeni kaliya. registration baa lagu sameeyaa marka emailka la tagaa. emailka marka la tago halkaasa laga soo galaa. halkaa marka laga soo gasho verify buu ka dhigayaa emailkaagii, laakiin weli wuxuu kaasii haystaa xagga iyo shuruudaha uu rabo inaad buuxiso. verify haduu emailka ka dhigay inta kale inuu ka dhigaa la rabaa. upload documentiga ku upload gareynaysaa. marka waxaan rabaa inaan haddana ku upload gareyno oo documentiga aan u direyno balela soco. waxaan u direynaa license driver proof id-ga marka aan diri doonaa caddeynaya residency-ga waa la ii ogolaaday. halkaan baleeg passport amaba id-ga haddii aan doorto ma raba id-ga noocaasa, maxaan rabaa marka license driver kaasaa kuu fudud. marka license driver see u geliyaa, akoonkeenana see verify uga dhignaa, labadaba waa arki doonaa. halkaa browserka click siinaysaa sida cashirkii hore aan usoo qaadanay. halkan waxaa imaanaynaa desktopkan soo dhiganay. license driver faceka hore waa kan, ila soco faceka hore ee license driverka waa soo geliyay, baagiisana waa ii dhiman yahay. okay, ila soco hadba mid baan taaban doonaaye. markuu soo dhameeyo safe adhaysa, halkan soo dhigayaa safe day buu kuleeyahay, safe adhaysa ila soco. marka wuu wadaa oo failkana waa gpg. failka wuxuu ku yimaadaa ama gpg ama pdf buu mid noqonayaa. imageka kan ah lama rabo, badanaa gpg gaasay dalbadaan, ama haddii gpg lagaa waayo waxay dalbadaan fail ah pdf. iyadoo hadba tilaabo aan sii qaadi doono ila soco. marka waad arki doontaa. marka waa save gareynayaa maadaama akoonkayga account numberkaas uu soo qaadanaya oo documentiga loo dirayo. okay, save si loo save gareeyo warqadda halkaas lagu save gareynayo. inta lagu save gareyn inta kale saa kaa reebayo. license driver haddaa rabtaan passport kaa rabtaan baa ku diri kartaan, xilliga uu dhacayo waxaasoo dhan baa halka ku cad. marka sidee verify uga dhignaa brokerkana waa brokerka aan hadda u dooranay inaan isticmaalno. thank you kusoo qoray. marka wuu qaatay kaas, baagiisii wuu naga rabaa. marka pending buu gelinayaa. marka isla license driver baagiina waa hadda soo gelinayaa, la soco. marka baagii haddaan dooranayaa
desktopku yaala waa soo geliyay waa doortay open baa halka ka leeyahay sida kale oo verify aan uga dhigi karnana waa intusin doonaa license driverka waa aragteen sida loo geliyo residency-ga sida loo saxo iyo swift code-ka sida bangiyada looga qaato bangigaaga hadduu bangiga aad ka haystaan mastercard-ka ama visa card-ka waa inaad ka qaadataan swift code waxay yidhaahdaan swift code wuxuu caddeynayaa macluumaadka oo dhammaystiran bangiga iyo xarumihiisii meeshuu ku yaalo dhan taagii dambe ayaan soo geliyey cashirkan waxaan ugu talagalay hadba tilaabo in aragtaan sida loo geliyo license driver idinkoo hadba step sii marayo waana muhiim jiddan taasi okay close baan iska leeyahay tanna waan save garaysanayaa akoonka marka akoonka numberkiisa ayaa mar walba arkaysaa oo documentigan iska leh halkaana waan kugu tusay sida loogu samaysto akoonkaagi oo loo habaysto cashiradan stepska waxaa ka helaysaan Somali Star Online Training iyadoo broker kalena aan arki doonno sidaan asigana u saxno oo verify uga dhigno brokerkan haddii aad registration kasoo bilowdo waa fududahay emailkaaga kasoo active garaynaysaa inta kale halkaana imaanaysaa markaa okay halkaan waxba ku qori maayo markaa okay baan iska leeyahay sawirkayga soo gashtay halkaan emailkayga iyo akoonka numberkaan ku leeyahay brokerka my wallet waa qasnadayda jeebka haddii aan rabo inaan soo degsado markaa documentigan maadaama aan hadda ku dirnay isla markii ma qaadanayo oo ma dhahayo isla markii waa verify wuxuu qabsanayaa waqti 24 hours iyo wax lamid ah haddii aad trade ka sameynayso dhexdiisa trading account waa sii furan kartaa MetaTrader 4 waa kasoo dhex degsanaysaa haddii aad isticmaasho PC-gaaga ama Android intaa rabtaba okay broker kale oo la yiraahdo asiga XM waxaa ugu yar lacag $10 la dhigi karaa waana dhignay waa taa $10 baa ku jirta sidee marka brokerkan lacagta loo dhigay asiga wuxuu naga rabaa inaan documentigii asigana aan documentigii gelino marka upload document kan marka documentiga uu iga rabo ila soco lacagtii ku jirtaa lacag yar baan ku bilownay real ID geeni realka ID buu ku siinayaa password oo ku galaysaa login baa leedahay member access area ayaa ku jirta waana real account $10 oo tijaabo ayaan ardayda ku tababaraynaa ayaan ku talagalnay xm.com waxaan ku tababaraynaa waa ardayda balansiga waa $10 laakiin lacag baan dhigi doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan documentiga aan upload garaynayo halkaas ku arki doontaan marka waa inuu noqdaa GPG ama PDF documentiyada marka halkaas kugu kala tusiyaa kuwa aad rabtid inaad ku dirtid faylasha ma residency ba oo magaalada joogta ka qaadanayso ma proof residency miya rabtaa inaad u dirto ma waxaa u diraysaa oo isticmaalaysaa passport ma waxaa kaloo isticmaalaysaa license driver intaba wuu ku tusin doonaa intaba see u kala dooranaysaa marka si aad verify uga dhigto akoonkan waxaa kaloo cashirkan inoo xigayo isla markiiba sida aan uga dhigi karno verify bangi akoonkeena markii aan lacagta dhignay kadib bangi akoon baan la weydiiyey hore cashirkan oo kale ayaan usoo sharaxnay bangigaaga waa inaan verify u noqdaa waa ka bangiga aan ka haysano annaga waa IBS Bank haddii aad ka haysato Salaam Bank kuwa la mid ah ama haddii aad ka haysato Premium Bank waa la mid waa verify garayn doontaa bangigan marka midid baa ugu diraysaa oo sidii hadda aan kuu tusay oo kale u isticmaalaysaa number 1 waxaa isticmaalaysaa kan oo faceka hore ah marka u dirta kadib uu dhamaado save garayso waxaa u diraysaa number 2 kana taasina fahantaan ayaa aad muhiim u ah waa Somali Star Traders iyo casharadii faaca badnaa ee qaybaha forex kala duwanaa step ayaan uga wada faa'iideysan doonaa waana muhiim jiddan iyadoo cashiro fara badan ay nagu soo wada socdaan ardayda kala duwan meel walba oo aad joogtaan brokerada kala duwan brokerkan verify wilina uma uu noqon laakiin wuu noqonayaa verify ayuu noqonayaa sababtoo ah wuxuu soo hubinayaa documentiga aan u dirnay uu checking soo marinaya kadib ayuu wuxuu sameynayaa inuu verify noqdo dashboardkaygii baan kusoo noqday sidee deposit loo sameeyaa iyo my wallet oo ahayd qasnadayda ama jeebkayga okay trade-ka aad galaysid iyo lacagaha iyo akoonka aad furatay iyo sida checking ugu sameyn karto marketka watch halkaas kala socon kartaa sambaleskii spreadkii iyo adigoo halka ka ogaanaya wax walba halkaas lacagahana lacagaha aad xulato ayaa isticmaali doontaa suuqa caawa uu furan yahay beri waa jimca la soco maantana waa khamiis suuqana sidaa darteed uu furan yahay
marka traderska qofka ah toolskiisa halkaan u yaala technical analysis economic calendar forex calculators uu leeyahay live buu leeyahay marka analysis-kii aad soo sameyso oo aad reportka news ka soo akhrisato kadib ayaa suuqan geli doontaa waana muhiim jiddan lacagaha analyze gareyn doonto euro USD USD CAD euro GBP AUD USD GBP iyo GBY GBP USD USD GBY goldigaba halkaas ka analyze gareyn kartaa oo kala socon kartaa reports kama newska iyadoo aan soo baranay casharo fara badan waxaan ku noqonaynaa my profile oo ahaa akoonkeeni halkii uu yaalay halkan kan markii verify uu noo saxay waana la ogolaaday akoonkeeni isla markii waa la verify gareeyay xilligii aan dhalanay addresskeena dokumentiyadeenna dhan verify baa laga dhigay lacagteena aan ku shubanay waxaan saarnay balancegeena waxaan ku qarnay waa hiding baan idinka saarnay si aanan loo arkin balancega halkaas lacagta noo taala brokerka iyadoo trade-ka aan ka sameynayno brokerkaasi aan ku xirannahay cashiradeena structure-ka suuqa ayaan u imaan doonaa oo cashiradeena inta ugu badan ay ka imaan doonaan halkani waa meesha kaliya aan ku falanqeyn doono cashirada ay nagu soo socda sida ugu dhaqsiyaha badan waa Smart Star Traders iyo cashiro fara badan oo aad ka faa'iideysan doontaan istiraatiijiyada